الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعل الحزن إذا شئت سهلا. laba qaybood baan u qaybinay cismaan taariikhdiisa oo qayb waxay ahayd sifaadkii hogaamiyanimo ee uu lahaa iyaynu ka soo hadalay oo cadaaladiisa iyo hogaannimadiisa iyo cadaaladda iyo waxyaabo fara badan ayaynu ka soo hadalay. qaar taariikhyahanada ka midi waxyaabihii ay ka sheegeen ayaan iyadna si kala duwan usoo qaadanay. marka qayb yar oo qaybtaa ka hadhan oo tilmaamaha cismaan ka mid a waxa ay ku tilmaameen taariikhyahanadu ama ha noqdaan kuwii wakti dambe ka qoray ama ha noqdaan kuwii isaga la waktiga ahaa ee joogay. waxay yidhaahdeen wuxuu ahaa shaksi miisaaman oo soo jiidasho leh iimaankiisuna waa aada u weyn yahay. sidaa daraaddeed awooddiisa yani awoodda dowladeed ee isaga markaa gacanta ugu jirtay kama aanay xoog badanin cadaaladiisaa miisaamaysa. waa dori awooddiisana mid ku xadgudubta ma ahayn. maamulkiisuna kama tallaabaynin naxariistiisa. hantida uu haysto ama taajirnimada uu leeyahayna kama aanu tegin inuu noqdo qof mutawaadica oo lasdhegle oo aan kibraynin inuu noqdo. saas wuxuu u noqday bay yidhahdeen inuu ilaahay taageero oo uu ilaahay ku maamuuso maadaama uu asbaabtii ama waxyaabihii sababta u noqon lahaa qofka in lagu wareejiyo maamul uu la yimiday taas baa ayaa sidaa noqota bay yidhahdeen. wayna u suuro gashay markaa dhulkii aasiyada yar ama anatolia la odhanayay badankooda inuu la wareego oo uu noqdo qofka isagu ugu maamul wanaagsan ka jira, ciidankiisu ugu awooda badan yahay, lagana haybaysto. ilaahay ilaalintiisa weynina ay u furto markaa albaabo fara badan ay u furto. sidaas buu cismaan ahaa bay yidhaahdeen. qodobka labaad waxa weeye dastuurkii uu ku socday ninkaas. dastuur muxuu ka dhiganayay ninka la yidhaha cismaan? inta badan taariikhyannadu waxay soo qaataan dardaaran uu maalmihii uu dhimanayay u dardaarmay inamadiisa, gaar ahaan ninka la wareegayay dowladda maadaama xukunku dhaxal ahaa iyo saaxiibadii uu u dardaarmay. dardaarankaasa inta badan taarikhyanadu siyaabo kala duwan qoloba in ay kasoo qaadataan. marka inaguna qaybo kamida dardaarankaas baynu soo qaadanaynaa. dardaarankaas marka wuxuu muujin doonaa dastuurka ay dowladdu ku socoto nooca uu yahay ayay muujin doonaa. nolosha marka amiir cusmaan aasaasaha dowladdaasi waxay ahayd halgan iyo dadku dacwadda ilaahay ugu baaqo, nin daaciya oo dadka dacwad islaamka ugu yeedhaya. culimaduna waxay ahaayeen dadka ula tashado. culimada dadka aqoonta ule culimada muslimiintu waxay ahaayeen dadka uu la tashado ee had iyo jeer maamulka dowladdiisa kormeera ee la socda ayay culimada ahaayeen. taariikhdu marka waxay xafiday markuu geeriyoonayay in si gaara inankiisii orahaan ama orakhaan, turkigu orahaan bay yidhahdaan, taariikhyahanada la jaarkiina waxay yidhaahdaan orakhaan, kha bay ka dhigaan, qaarna ha bay ka dhigaan. labaduba way jiraan marka laba sidii loogu dhawaaqaba. wuxuu ku yidhi inankiisa isagoo la dardaarmayo maadaama uu yahay ninka xukunkii la wareegaya, inankaa keliya ma lahayna daynamo kalu lahaa. waxaa la yidhahdaa waxaa ka weynaa orakhaan nin la yidhahdaa calaa adiib la yidhaahdo. inay isku hooyahayn inay kala hooyahayn ma garanayo. waxay taariikhdu xusaysaa inuu calaa diin weynaa, da ahaan inuu weynaa. marka kaa muxuu cismaan ugu dhiibi waayaa la yidhi oo nin culimo ah oo xukunkaba ka saahiday buu ahaa baa la yidhi. laakiin maamulka dowladda kama marnayn isaguna, mana doonaynin inuu hogaamiyo dowladda. sidaa daraaddeed wuxuu noqdaa la yidhaha ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dowladda cusmaaniyiintu yeelato ayuu noqdaa la yidhahdaa calaa diin. oo intaa wixii ka dambeeyey
ra-iisul wasaare la samayn jiray. ra-iisul wasaare marka wuxuu ahaa ninka maamulka waxa la yidhaahdo maamulka dowladda ee maalinlaha ah, howlaha maalinlaha ee maamulka dowladda qabta, iyadoo de wixii weyn loo celinayo xagga maaragtay suldaanka loo celinayo. wuxuu ku yihi marka inankaygiyo ha ku mashquulin waxaanu ilaahay ku amrin, ha isku daalinin buu ku yiri. dhibaata hadday xukunkaaga kaa hor timaadana ood fahmi weydo, culimada la tasho, iyagaa kuu furfuri doona. wuxuu kaloo ku yidhi inankiisa waxaad isku daydaa inay kula joogaan dadku adeecaya, oo adeeciddaas micnaheedu maaha inay wax walba kugu adeecayaan, wixii wanaagsan kugu adeecayaan, wixii khaladan ay kaa qabanayaan ka joogsa ay ku leeyihiin. ciidankaagana ka warhay, ciidankaa joonaya ama tababarkooda aanu fiicnayn ama dhibaataysan de waxba qaban maayo, markaa ciidankaagana la soco. shaydaanna yuuna kugu dagin ciidanka iyo maalka iyo hantida iyo waxa aad haysato, shaydaanku yuuna kugu dagin, una been kuu sheegi. iskana ilaali inaad ka fogaato shareecada ka fogaato, iska ilaali. inankaygo waxaad ogaataa buuli ujeeddadeennu waa raaligelinta ilaahay inaan raaligelin, ujeeddadeennu waa taas. qofku dee ujeeddada ilaahay markuu u socdo, dadna way raalli bay ka noqon, dadna way ku cadhon. raalli ahaanshaha ilaahay baad gaari kartaa, raalli ahaanshaha dadka ma gaari karta. halgankuna waa nuurka diinteennan ku socono buuli. marka raadi buu ku yidhi raalli ahaanshaha ilaahay uu raadi gooro. wuxuu ku yidhi inankaygiyo ma nihin kuwa dagaal u qaada inay xukun qabsadaan ama dhul ay qabsadaan ama dad ay qabsadaan, sidaa kuwa dagaalka u qaadaya ma nihin buuri. waxaan u qaadaynaa inaan islaamka noolayno, islaamkana u dhimano. taasina waxa weeyaan buuri arrinta aynu ahalka u nahay. halkaas qodobkaas saddexaad ee dardaarankiisu wuxuu caddaynayaa dowlado badan baa adduunka duulimaadya kusoo qaaday oo kala duwan, oo kala mabda' duwan. ujeeddada dowladahaas dagaalka u qaadayeen, isaga marka ujeeddadiisu ma aha inuu xukun kororsado iyo inuu dhul kororsado maaha, waa inuu gaadhsiiyo cadaaladda islaamka, inuu meel gaadhsiiyo. halka dowlado kaloo fara badan oo waayo hore jiray iyo kuwo imika jirana duulaankoodii wuxuu ku salaysan yahay awooddooda inay muujiyaan. hadday intaasoo malaayiina dilaan iyo intaasoo malaayiin hadday kharibaan danka ma laha, kaliya waa inay awooddooda muuqato. dagaalo badan oo adduunka ka dhacay waxay u badan yihiin awoodda ciddaas ay muujinayso. waxyaabaha lagu magacaabo matalan dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad iyo imse qofaa ku dhintay, wax dee adduunka lagu baabiinayay, bani aadamka lagu baabiinayay ilbaxnimadiisa iyo waxay dadkuba dhiseen oo dhanba lagu baabiinayay bu kii koowaad. hub halisa waa la isticmaalay, laakiin hubka halista wuu yaraa. sidaasay tahay dhowr iyo 20 milyan baa ku dhintay kii koowaad, dagaalkii la odhanayay 14 ilaa 18 socod, waana 4 sano keliya. dhowr iyo 20 milyan baa ku dhintay oo Yurub u badan. kii labaad 39 ilaa 45 56 milyan baa ku dhintay, 56 milyan oo labada magaalo Hiroshima iyo Nagasaki ay ugu daran yihiin, way baabeen labada magaalo. wixii bani aadam ku noolaayo oo dhaniba subaxdii August 3 iyo August 8 waa saddex maalmood muddo u dhaxayso ayay labada magaalo waxay ku noqdeen wixii ku noolaa iyo wixii ka dhisnaaba qabuura isku bedelay, hilibgeeda isku bedelay. bani aadamka noocaas kale u dagaalamayaan, bani aadam u dagaalamaya maaha ujeeddo wanaagsan u dagaalamaya maaha. bani aadamka inuu horumariyana uma dagaalamayo, bani aadamkii uu baabiinaya halkaas. marka inagu teenu taas maaha buu leeyahay ninkan. kitaab kaloo la yidhaahdo taariikhda siyaasiga dowladda cusmaaniyiinta waxaa ku taala riwaayad si kale u dhigan, hadalkooda si yaroo kale u dhigan. inankaygiiow waxaad ogaataa
faafinta islaamka iyo dadka in la hanuuniyo sharafta muslimiinta aad ilaaliso iyo xoolahooda inaad ilaaliso inay tahay ammaano qoortaada suran sharafta muslimiinta iyo xoolahooda inaad ilaaliso inay tahay ammaano qoortaada suran ilaahayna uu ku weydiinayo kitaab kaloo la yidhaahdo ma'saatu bani cusmaan dhibaatadii reer cismaan waxaa isna ku taalla oo warqan ku leeyahay inankaygiio waxaa dhowaatay saacaddii aan ilaahay xaggiisa u kici lahaa oon dhiman lahaa waanan kugu faanaya waanan kugu kalsoonahay u noqo dadkiisa nin cadaalad sameeya u noqo nin u halgama waddadiisa noqo nin islaamka faafiyo noqo inankayga waxaan kuu dardaarmayaa culimada ummadda muslimiinta inaad ilaaliso had ya jeer ha ku garab joogaan weynee la tasho ra'yigoodana qaado waxaan khayr ahayna kuma amriyaan culimadu dee badana khayr mooyaane xumaan nin caalimihi isku dayi maayo inuu shar qof u sheego isku dayi maayo wuxuu ku dadaalay inuu had ya jeer wanaagga u sheego inankayga waxaan kaaga digayaa buuri inaad samayso waxaanu ilaahay raalli ka ahay hadday arrini kugu adkaato culimada shareecada weydii khayrkay iyaga ku tusi doono waa uu ku celceliyey ereygaas culimada inuu had ya jeer weydiiyo uu kaloo la yidhaahdo taariikhdii cusmaaniyiinta oo isagoo sawira la helay koobi unbaa la helay waxaa dardaaranka ku yaala waxaan u dardaarmayaa caruurta wiilashayda iyo saaxiibaday waxaan u dardaarmayaa inay ku dadaalaan inay sarraysiiyaan oo ay weyneeyaan diinta islaamka sidaana ay ku dadaalaan calanka islaamka ee sharafta le kor u qaada arrintaasna loolankeeda ha ka daalina u shaqeeya had ya jeer inaad ahaataan dad islaamka u shaqeeya ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu addoonkiisan daciifka ah ee aniga oo kale cismaana ugu gargaaray inuu dhul u furo keliya waxay ahayd aan niyeysaneedu shaqaynay ogaada buu yidhi haddii aad ka leexataan waddadaas islaamka aad ka leexataan gaar ahaan aniga tafiirteedu hadday ka leexdaan waxaa laga xaaraam yeelay shafaacadii nebiga محمد عليه الصلاة والسلام بالله حرام عندي كله إنما ذا اليوم الدنيا دو يعني قارت إذن قبلنا الجيش دي بعد نواتي دولة دين إذن كان إذن كوريتي عدالة أهمه هذا أردن بكسمعي مرة تاسوح نقطي دردارن كعثمان دردارمي ورقدا له قري intii salaadiinta xoogga leh ay joogeen Sulaymaan wixii ka horreeyay dabcan Sulaymaan wax yar baa ka dambeeyay wada kuwa fiican oo ka dambeeyay way jiraan inta badan waxay salaadiintu raaci jireen dardaarankaas odayga hore dhigay ayay raaci jireen nin alla ninkii ka leexdana waxa la oran jiray may oo ka leexda la oran jiray culimadana aad baa loo weyninay aad baa loo qadarinay saas daraaddeed dowladda Cusmaaniyiintu waxay samaysay cismaan kadib laba jago oo muhiim ah jagada waa taa ra'iisul wasaaraha qofka ra'iisul wasaaraha noqonaya inta badan qofka ra'iisul wasaaraha noqonaya qof khabiir siyaasadeed iyo khabiir military iyo culimo inta isugu jira buu ahaa jagada labaadna waxaa jaga la yidhaahdo Sheikhul Islaam oo culimada dowladdaas Cusmaaniyiinta gobolladeeda kala duwan joogta ninka ay isku wada raacaan ay taskeeyaan ilaa sheekha uu noogu cilmiga badan waa hebel kaasuu suldaanku magacaabi jiray inuu Sheikhul Islaam yahay marka suldaanku wuxuu lahaa inuu magacaabo ma casili karay ma suuragelin inuu casilo oo ma dhacaynin inuu suldaanku yidhaahdo waan ka noqdo Sheikhul Islaam kuwan casili marna ma dhicin taariikhdooda way iskhilaafeen suldaan iyo Sheikhul Islaam iskhilaafay way dhacday taariikhdooda dhexdeeda markaasaa la raacay Sheikhul Islaamkii la raacay suldaankii la yidhi maya sheekha kaa saxsan mana casili karay dastuurkii baa ogol inuu ma casili karay
marka waxay noqotay dastuur la raaco dardaarankaasi dastuur la raaco noqday dowladdu ay ku dhaqanto muddo dheer intii ay jirtay toddobadii qarni iyo dheeraadka ay dowladdu jirtay dowladda markaa dhulka uu ka tegay sidaa uma ballaadhnayn waa 16,000 oo kilomitir oo laga jibaa dhulka uu ka tegay marka dowladdu oo u badan aasiyada yar ama anatolia dhulka la yidhaahdo u badan wax ka tallaabsanaaba ma jirinba laakiin waxa ay soo gaadheen badda la yidhaahda marmara hadhow baan marmara iyo xoogaa maaragtay sheegi doonaa badda marmara la yidhahdo waa badda ay istanbul ku agtaalo qayb ka mid ah dhinaca koonfureed marka laga joogo ciidankiisuna waxay u dhowaadeen labadii magaalo ee ugu muhiimsanaa meelahaas mid la yidhahda Aznik iyo Boros labadaas xagga Yurub ay ku yaalaan oo biyaha badda marmara way ka talowsan yihiin xagga shishe kaga yaalaan labadaa magaalo waxay noqdeen laba magaalo oo ciidanku ay xagga bari ka fadhiyaan dabcan biyahana ay u dhaxeeyaan saasoo marka Cismaan ku tagay waxaa xukunkii la wareegay inankiisa la yidhaahdo Orahan ama Orakhan waa inankii labaadna waa annaga sida ay masaadirta u badan tahay qaarna waa kii koowaad bay leeyihiin isagaa kii koowaad ahaa qaarna leeyihiin waa inamada ta ugu weyn isagaa Orakhan waqtigiisu aad buu dheeraa waa 720 ilaa 760 hijrada marka la yidhaahdo ama 1320 miilaadiga 1360 waa dhowr 46 sano ku dhawaad sano 46 sano ku dhawaad weyn waxaan u jeedaa saas wey meelahaas 720 ilaa 60 maxaa u dhexeeya 33 sano 33 sano markaa jooga 33 sano wey sax wey Cismaan markaa uu geeriyooday waxaa la wareegay inankiisaas Orakhan baa la wareegay siyaasadii aabihiina uu ku socday dhul badanna dibadii uu furtay dhul badan inta aabihii furtay waxaa ka weynaa inta uu Orakhan furtay baa ka weynay dowladdii waxay noqotay dowladda yar oo soo unkamaysa ayuu ka tegay Cismaan dhul fiicanna degan ninkana marka halkiiba kasii qaaday sanadkii uu xukunka la wareegay sanadkii ku xigay 720 ama 1327 magaalada Nicomedia ayuu qabsaday oo ku taala waqooyi galbeed ee Aasiyada yar ama Aasiyada yar una dhow magaaladii Constantinople bay xagga Aasiya kaga taalaa hadda waxay ku taallaa halka magaalada Azmit la yidhaahdo magaalada magaceeda laga bedelay Nicomedia waaga la odhan jiray Azmit baa hadda la yidhahdaa Azmit yani Azmirtu la yidhahdo ayaa jirto magaalada afraad ee Turkiga ugu weyn magaalada afraad weyn taas xaggan waxay badda Mediterranean ku taallaa marka tani waa kale magaalada marka wuxuu ka sameeyay Azmit jaamacaddii ugu horeysay jaamacad iskuul ma jaamacad hore waa nagi iskuuladii iyo soo sheegi jiray oo waqtigiisa la shaqada la soo sameeyay la jaamacad balka bilaabay maamulka jaamacadana wuxuu dhiibay sheekh la yiraahdo Daawud al-Qaysari oo culimada waaweyn kamid ah oo Masar ka yimid marka dawladdu iyadu ninka caalamkii meesha doonaan ka yimaado waa culimadeedu waxa kaloo ninkan Orakhan la yiraahdo xooga saaray dhismaha ciidan casri ah xilligaas ciidan casri ah oo nidaamsan waxa kaloo Orakhan ku dadaalay inuu xaqiijiyo ama ka dhabeeyo bishaaradii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ahayd furashada magaalada Constantinople tan iyo waagii dawladdii Umayyadeed Muawiya ka soo bilow ilaa markan muslimiintu waxay ku soo qaadeen 28 duulaan ayay ku soo qaadeen 28 duulaan oo maalaha ka ugu weyni oo ahaa kii ay kula heshiiyeen markii dambe in halkii uu ku dhintay Abu Ayyub al-Ansari oo asxaabta ka mid ahaa oo waqtigii Yazid bin Muawiya waqtigaasna ay halkaas laga sameeyo suuq iyo masaajid
dadka muslimiintuna inay masaajidka ku tukadaan. Masaajidkiina marka waxa loo yaqaanaa Suldaan Ayuub baa loo yaqaanaa. Degmada ugu yaallana Suldaan Ayuub baa la yidhaahdaa dabigeedaba. waa halkan uu ku aasan yahay asxaabigaas ku aasan yahay. Marka taa isagoo ka duulaya wuxuu sameeyey qorshe istiraatiijiyadeed oo muddo dheer soconaya. يعني يسوي ونفور كريم مقالة لكن نوع الوين وحكوطة كوي هرب وحبي كدري مركز يسوي خلطات كي مسلمين تهوري أي سنة كفاية سنة قرشنا أقول جاي إن مقالة على لفظ ويسوي هذا يسوي تقري ويدو ككتم بيه هدو كري ويا ككسيدم بيه كي شنات بايو صورة كشيء أنت وده دم بموي صورة قريب حسكو مركز مقالة دي نوباري يا قلبات بكامرة وكان ما كان شايفنا أزميتيو بركة حتى قصده مقالوين حق يوروب كجي عليه هو قصده يلوينا يجنو وطلع راي سلامر كليه أرنتاسو حقيقيو وحقود دري إن إسقوا ضلع أرخان أو سليمان ليداد كاسو كتلاوي ماشي ليداد دردنيل مضيق دردنيل الكير عريري دردنيل كتلاوي waxaa jirta adduunkan aynu hadda ku noolahay juqraafiga intiina dhigataa wada garanaysaan baan u malayn 8 mudayad ama 8 cidhiidhi oo biyo dhulka biyaha leh muhiimka 7 ka mid ah caalamka islaamka ku yaala mid unba ka baxsan halkan Dardanelle markaan ka soo bilowno Dardanelle waxa uu waqooyi ka xiga Bosfor magaalada Istanbul waxay ku taalaa bariga Aasiya iyo bariga Yurub labadaba way ku taalaa badda Mediterranean way ballaaran tahay marka xaggaas koonfurta ay ka xigta magaalada laakiin markii magaalada soo gaadho badda way yaraanaysaa way isku soo dhawaanaysaa halka badda isku soo dhawaato waxa la yiraahdaa baddaas halka ku jirta marmara la yiraahdaa magaceeda gacan ka yar halka isku soo dhawaaday xagga badda Mediterranean ka looga baxay Dardanelle baa la koonfurta looga baxay kolka xagga waqooyi loo sii socdo baddi marmara laga baxay badda madow badda la yiraahdo imka Ruushka iyo Ukraine iyo isku dagaalaan taas la galaya halka laga galayna Bosfor baa la yiraahdaa iyadna dhulku isku soo dhawaada labadaas Turkiga bay ku yaalaan oo marka ku agmaraysa aad arkaysaa waa 3 kilomitir biyo inta isku jiraan ama waa 1 kilomitir uu ka yaryahay ka ku xigay waa Suez oo gacanta lagu jeexay bani aadam baa jeexay 1869 ilaa iyo 1870 baa shirkad Faransiiska samaysay badda biyaha cas iyo badda Mediterranean baa la isku furay Masar guusna ku yaala Sinai iyo Masarta Afrika iyo u dhaxeeya koonfur marka laga soo socoto Djibouti baa imanaya Yemen agtooda Bab el-Mandeb baa ku yaala badii casayda way dhooban tahay intaas oo dhan halka Bab el-Mandebna way isku sii dhawaatay Bab el-Mandeb marka soo dhaafto badda way yar ballaaranaysaa xoogaa marka afar banayna soo weli saa uga sii soco bari halkaas ay biyaha u dhaxeeya Sacuudiga iyo Iiraan waxa ku yaala isagana gacan yar oo kale oo meel yar oo ciidi oo kale la yiraahdo Hormuz bariga marka Iiraan baa ka xigta xagga galbeedkana waxa ka xiga Qatar iyo Sacuudiga baa ka xiga biyo isku dhawaanayaan inuu sanayna 5 Soomaa كالحادنا وحلا إلى هذا ملقا حول حيا سنغافورة هي ماليزيا وكان ماليزيا سنغافورة وابو رسكومت بهاي لكن إنجليز كا سنغافورة دلوا كم رحمنا كده وليه تطلع جبل طارق أما مونت جيلبرت مراكا هي إسبان أيها ولا حيسايا ضنا حاجة مراكا كمان وابو هرنا حاجة ندرس بكمان تطبقاس عالم كيسان بكويا حبدا ka baxsan waa kee Panama Canal baa la yiraahdaa oo ku yaala labada Ameerika u dhaxeeya Ameerikada waqooyi Ameerikada koonfureed ayuu u dhaxeeya oo meel muhiim ka adduunka la isaga gudbo marka halkaas ka gudbay yiri dhinaca galbeed xilliga dawladdu marka maraakiib ma laha dawladda Cusmaaniyiinta maraakiib dagaal ma laha marka sanadkaas 728 hijrada ya Suleymaan iyo ciidamadiisa 40 nin iyagoo xilli habeenimo u tallaabeen
dhinaca shishe u tallaabeen maraakiib Byzantiintu lahaayeen bay halkaa oo taallay adduunyo dhinacii bari bay kusoo noqdeen markaa Cusmaaniyiintu inuu xilligaa maba lahayn baa maraakiibda ku kaga gudbaan ma ayna lahayn saasay marka Cusmaan iyo ciidamadiisii intay fardihii iyo hubkii iyo ciidankii ku qaateen bay dhinaca Yurub xaggan bari ka soo tallaabeen waa Aasiya xagga bari galbeed bay u tallaabeen waxay furteen 3 qalcadood ama 4 oo intuba Dardaniil ku taala qalcad waxa la yiraahdaa Tarambi ma hada madaxweynaha Mareykanka qalcada magaceeda la yiraahdaa waa magaca masweeraya Gallipoli baa talabaad la yiraahdaa Gallipoli ta saddexaadna waxa la yiraahdaa Absala ta saddexaadna Rosto marka badda Marmara iyo Dardaniil intaasay ku yaalaan qalcadahaas Gallipoli oo kale waa qalcad iyo qalcada shanaad baa jirta Janaa qalcad la yiraahdaa Janaa qalcad waa qalcad dagaalkii koowaad markii uu socday 17 ilaa 18 uu dagaal aad u xun Cusmaaniyiinta iyo xulafada u dhexmaray Cusmaaniyiinta iyo xulafada aad u halka ku dhexmaray Cusmaaniyiinta halka waxa kaga dhintay 23,000 ama 25,000 oo askari baa qalcadaha kaga dhintay Janaa qalcad weeyaan iyaguna inay dileen inta biyuhu la tageen ilaa ma tarin kara Ingiriis Faransiis Talyaani Greek dalkeeda masaakiinta xagga bariga fog yaala New Zealand waa ku dhamaaday halka Janaa qalcad hadina maalinta dowladda Cusmaaniyiintu sida u difaacina lagama joogsadeen ba Istanbul aakhirkiina waa ta keentay Janaa qalcadaas in heshiis la kala qorto iyadoo qoladaasna meydkoodu badda u qariyay kuwana uu bariga qariyay ilaa halkaas ku dhaafmeynaa saaman ku heshiina markaa bay dhahay waxyaabaha marka imika dadka Turkiga ku faana waxa kamid ah waxay dhahdeen maalinta Janaa qalcad dhowr iyo 20 kun oo ku dhintay Arab baa ku jirta Kurdiyiin baa ku jira Turki baa ku jira Afrikaan baa ku jira wiilal dadkaas ay difaacayeen dadku Turki bay difaacayeen hada ku yinan maartay xaq jirka Turkiga oo Turki waxa ma hayaan xabaalahan dib ugu noqdaan xabaalahan ayaga xabaalay bay ku wada qorayiin nin walba meeshu ka yimid dib ugu qoran Tunis iyo Morocco iyo dadka halka marka Dardaniil bay ku taala Dardaniil marka waqooyi iyo koonfur badda u dhaxaysa oo xagga Yurub iyo xagga Aasiya Orokhan ciidankiisa qabsadeen inay dawlad magaaladii Istanbul markii dambe loo bixiyay Constantinople halka waxay ka gashay go'doon maraakiibteedu markay halka ka talaabayaan waa inay ogolaansho ka haystaan Cusmaaniyiinta ka haystaan waxyaabaha uu qabtay Suldaan Orokhan waxa kamid ahaa wuxuu aasaasay ciidan cusub oo ciidamadii hore ka duwan ciidanka waqtigii aabihii iyo waqtigii awowgii jiray ciidamo waxay iska haayeen qaab tabarruc oo kala u shaqeynaya ciidan rigli oo xariya degan oo ma ahayn tababarro waa la siinaya ciidanka tababarro waa la siinaya laakiin ciidan xariya degan oo meel ku diyaarsan ma ahayn wuxuu ahaa ciidan qaab reerooga iskala jooga marka hawl baa dhacday la yiraahdo isku yimaada saasay u badnaayeen walow marka Cusmaanba ciidamo rigli qayb ahaan ay jireen tiradoodu ha koobnaatay marka ninkan wuxuu aasaasay ciidan dawladdu leedahay oo joogta taariikhdana waxa ku jirta maramo fara badan baa ku dhex jira ciidankaas laakiin sida saxda ay u tahay baynu sheegi doonaa ciidankaas Orokhan uu aasaasay ama uu sameeyay waxa la yiraahdaa nidaam ahaan waxay ku xidhnaayeen suldaanka ku xidhnaayeen ciidankaas nidaam ahaan waxaana ciidanku u qaybiyay qaybaha ciidanku u qaybsamaan oo ka kooban matalan 10 qof 100 qof 1000 qof 50 qof saas oo kale u qaybsan oo inta tiro walba nin uu maamulo
oo nin hogaamiyo kolka dawladdu ay wixii qaniimo ah ama wixii ay hesho boojimo ma la oran jiray boojimo ay hesho meesha shanaad ciidankaasaa lagu bixin jiray oo la siinayay ciidankaasaa lagu maalgelinayay ciidankaas marka wuxuu ahaa ciidan joogta oo waqti gooniya aan lahayn waqti nabad la yahay iyo waqti dagaal la yahayba waa ciidan joogta tababarkiisa hubkiisa qalabkiisa wixiisu waa diyaar markii ay soo diyaar garoobaan hawl looga baahdo waa la soo dhaqaajinaya ciidankan marka cusub waxa uu Orkhan ku daray waxa uu loo bixiyay afka Turkiga inkishaariya ciidankii cusbaa badankiisana waxaa laga abuuray ama laga sameeyay laga aasaasay muslimiinta cusub dadka muslimiinta markaa diinta soo galay cusub yaa laga aasaasay tiradooduna mar walba way kordhaysay oo ay dawladdu ballaarato markasta dawladda ruqcada dhulka ay xukuntaa uu ballaadho ciidankana uu ballaadhanay ciidankaas marka taliyahooda guud wuxuu ahaa suldaanka ayuu ahaa inta badanna waxa ahaan jiray dadka maaragtay cusub islaamka soo galay baa yaa tababarkaas la siin jiray oo qaadanayay marka waxaa la siin jiray culimana waa lagu darayay waxaa la barayay diintana waa la barayay oo rag culimo iyo fuqahana way ku jireen astaantoodu ciidankaas waxay ahayd dhar gooniye lahayn waa marka uu isbedelay dharku laakiin markii ugu dambeysay dharkoodu wuxuu ahaan jiray dhar wada cas grace cas koofiyad cas shaar cas surwaal cas iyo kaba dhaadheer kaba aad u dhaadheer astaantoodu marka waxay ahaan jirtay oo ku qoraan jirtay qofka askariga shaarkiis ghaziyan aw shahiidan labada eri baa ku qoraanaya waa duulaynaa ama waan shahiidaynaa labadaas ayaa ku qoraan jirtay halkan haddaba marka ay taarikhyahanadu ka warramayaan ha u badnaadaan taarikhyahanadii aan maalintii hore bilowgii kasoo sheekeynayna meel bay dawladda kaga dhaceen aan lahayn oo kuwa reer galbeedka ha u badnaadaan waxay yidhaahdeen ciidankan waxaa laga sameeyey caruur laga soo xoogay dadka aan muslimiinta ahayn xoog lagaga qaato ilaan dhul badan bay dawladda qabsatay Aasiya ku yaal iyo Yurub ku yaal dad badan oo diimo kala haystaana waxay soo galeen maamulkii dawladda caruurta ay dadkaasi dhaleen gaar ahaan kuwa kiristaanka iyo dawladdu u samaysay yidhaahdeen nidaam la yidhaahdo ama qaanuun la yidhaahdo dabshara micnaheedu waxa weeyaan bay yidhahdaan cashuurta wiilasha marka reerku hadduu 3 wiil leeyahay mid baa laga qaadaya hadduu 2 leeyihiin mid baa laga qaadaya hadday mid leeyihiin baa loo daynayaa saasay ku doodeen taariikhda qoladaas marka kuwa taariikhanada arrintaa ku dooday waxaa ka mid ah Karl Brockman iyo Gionis iyo Jib nimanka taariikhanada reer Yurub bay u badan yihiin kuwaasaa ku dooday oo la caruurtaasaa lagu waxeeyay arrintaas waa iska been ma xaqiiqa ama run ma ana Orkhan waxa la yidhi xilligiisa iyo Muraad labadaas ciidankan xoogga Muraadna waa ka ku xiga Orkhan ciidankan badankooda labadaas waqtigoodii baa la sameeyay dagaaladii marka ka dhacay qaybta Yurub gaar ahaan ka dhacay gobolada Yurub meeshan Balqaanka gobolka la yiraahdo u badnaa oo ay ku jirto Serbia iyo Hungary iyo Romania iyo Bosnia iyo Kosovo iyo Albania ay ku jiraan dagaaladii ka dhacay baa waxay sababeen baa la yidhi caruur fara badan oo bilaa waalida oo darbi jiifa caruurtii darbi jiifka ahayd ee bilaa waalidka ahayd bay dawladdu soo ururisay waxay keentay iskuulo iyo meelo lagu xanaaneeyo meelo lagu daryeelay keentay
carruurtii markii la daryeelo dee waalid dowladdii baa u noqotay ma de waalid ma laha carruurtaas bedelkooda ama way kala lumeen ama dagaalkiibay dee ku dhinteen si unbay u kala waxaysmeen carruurtii in badan oo kamid a ciidankay kamid noqdeen markay dad waaweyn noqdeen laakiin ikhtiyaarkooda ku noqonayaan maaha wax dowladdu ay ku khasbaysa maaha leanna inay qayba ka hadheen waxaa daliilo qaar fara badan qasrigii suldaankii ka shaqaynayeen qaar fara badan culimay noqdeen qaar fara badan ganacsatay noqdeen way iskaga tegeen shaqadii way xidha annagaas ku filan dowladdu waad mahadsan tahay dad dalkana soo gaarsiisa dowladdu mayna khasbin marka carruurtan waxaa kaloo ku jirtay carruurtaas keliya ma ahayn inay kiristaan ahaayeen kuwa badan oo muslimiina ku jira oo waalidkood ku dhinteen agoomo dagaalka iyaga naftooda ay ku dhinteen labaduba de waa agoon taasna agoonkana waa agoon ku noqonaya laakiin iyagu waxay yidhaahdeen may qaanuunkaasay u sameeyeen dadkana xoog lagaga qaadayay sidaasaa lagu sameeyey taarikhyahanadii muslimiintuna qaar badan oo kamid sheekadaas bay qaateen waxay yidhahdeen cashuurta wiilasha ayaa laga qaadaya xataa kitaabyo fiican baa iyo sheekada khuraafaadkii ku dhex jirta oo kamid yahay dowla alcaliya alcuthmaaniya oo nin la yidhaahdo cali xasuun la yidhahdo qoray iyo dowla alcuthmaaniya oo maxamed kurdi nin la yidhahdo qoray kitaab kaloo la yidhahdo khudad sham waxyaabahaasay kusoo wada ururiyeen iyo cumar cabdilcaziiz nin la yidhaahdo muxaadaraat fi taariikh shucuub alislaamiya sheekadaasay wada keeneen laakiin sida xaqiiqadu tahay carruurtaas ma ahayn kuwa cashuur lagu qaatay ma ahayn xaqiiqada dhabti waxay ahayd inay carruurtaasi qaar fara badan oo kamid ihi noqdeen agoomo noqdeen dowladduna ay korisay markay dowladdu korisana iyagu ay doorteen inay ciidankan ku biiraan leanna kolkan uu orakhaan samaynayay ciidanka inkishaariyadu bilaabayay dagaalada waaweyn ee iyagu ay ka sheekeynayaan nimankani ee laleeyahay carruur baa lagu soo qabsaday mabay dhicinba dhulkii uu aabihii ka dhaxlay dadkii uu ciidanka ka sameeyey unba ciidanka inkishaariyada ka abuuray isaga uu ka sameeyey kadibna waa ciidanka waa lagu soo biirayo markii dambe waa lagu soo biirayo marka ciidanku wuxuu ahaa ciidan cusub oo xaalad dagaal iyo xaalad nabadgelyaba diyaara xerihiisa degan u diyaara inuu goor walba u diyaar garoobo waxaana laga keenaya gobollada dowladdu ay ka kooban tahay iyo degmooyinka ay ka kooban tahay in la yidhaahdo degme heblaayo 10 fardooleya degmadaasina 10 saas degmooyinka ciidankii laga keenay la isku soo ururiyey waa marka kan loo furay tababarkaas iyo howlahaas iyo loo sameeyey marka ciidankii baa loo raadiyay magacaan u bixinaa maxaan ugu daraa yani tashar bay u bixiyeen marka inkishaariya markii dambe iska noqotay yani tashar yani ciidankii cusbaa magacaana waxaa bixiyey nin sheekha oo culimadooda waaweyn kamid ahaa ayaa bixiyey waxayna noqotay markii dambe xarumaha ciidanka inkishaariyadu ay leeyihiin astaantii sheekhaas cimaamadiisi oo laga sameeyey taalo laga sameeyey baa ku oriyay xaaji baktaash baa la odhan jiray marka marar dambe waynu arki doonaaye way ku gadood bay samayn jireen ciidankaas oo salaadiinta iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada iyobay dhibi jireen inqilaab bay ku samayn jireen markaasaa culimadu waxay xasuusin jireen niyo xaaji baktaash sidaadi kulama dardaarmay xaaji baktaash dardaarankiis kumaanu jirin inaad mas-uuliyiintiina ka hor timaadaan marka dib bay u noqon jireen marka xaaji baktaash la xasuusiyo xaaji baktaashku nin sheekh suufiya culimo oo nin caalima laakiin dariiqa suufiya ayuu ahaa waana dowladdana suufiyadu way ku badnayd dariiqada suufiyadu way ku badnayd ciidankan marka calankiisu inkishaariga ciidankan calankiisu wuxuu ahaa maracas way dhexda kaga taalo bil marka dowladda turkiga calankeedu waa maxay maanta waa maracas oo ay bil iyo xidiga ku taalo soo maa xidigtana mar dambe uma lagu daray manaa waa ciidan kuwaas inkishaariga la yidhahda calankii ay lahaayeen bay calankii dowladda wa
seefta hoosteedana waxaa ku qoraan jiray iyaga waaga dulfaqaar waa seeftii cali bin abi taalib dulfaqaar oo carabi ku qoran waa ku qoraan jirtay hilaalka bisha hoosteeda ku qoraan fikradda ciidankan sida loo sameeyey iyo qaabkan loo abaabulay waxaa lahaabaa la yidhi calaa addiin bin cusmaan ninka cusmaan qaarkhaan walaala ahaayeen maadaama nin caalima oo xagga shareecadana kuwa tasawufka iyo zuhdigiisuna u aada u badnaa isagaa fikraddaa lahaabaa la yidhi tiibuna walaalkiina qaatay oo uu ku shaqeeyey ninkan la yidhaha orkhaan la yidhahdaa ku shaqeeyey marka tirada ciidanku way korodhay aad bay u badatay ilaa ciidankaas meesha uu soo galo dowladihii waagaa jiray marka ay ogaadaan inkishaariyadii baa ku jirta ciidankaas suldaanka in meesha laysaga sii baxo ama heshiisba lala galo tiradooduna dee marka ay gaadhay kumayaal markay waayadii dambe markii la sameeyey tiradood markay ugu yar tahay 10,000 bay ahaayeen waa inkishaariyada keliya daba ciidanka kala maaha 10,000 markay ugu badnaayeenna 50,000 60,000 bay ahaayeen marka qaanuunka waayadii dambe ay dowladdu samaysay waa markuu suldaanku baxa un bay raaci jireen hadduuna suldaanku bixin xeryaho kama baxayaan xeryahoga iska joogayaan marka sida dee xaqiiqadu tahayna warkaa saasaa marka ciidanka loo aasaasay maaha sida nimanka taariikhyahanadaas aan maalintii horena kasoo sheekaynay ilaa haddana wayna daba socon doontaayo adduunka waxa lagu kala aarsaday ma aha wixii dhacay markaasu dhacay waxa la qoro martii waxa la qoro been haddii la qoro oy buugaagta gasho taanbaa oholaysa haddii runteedii la helo la qoro runtaa unbaa markaa oolay soo soconaysa yani in loo qaato inay dad hamaji cawaana oo dadkao dhan laynay ahaayeen oo waxay doonaanba adeegsanay inay ahaayeen xaqiiqaduna sidaas way ka fogta oo nimankan waxaad ka arki doontaa siyaasadda ay dadka kula dhaqmeen shacabkan ay maamulaan baa wuxuu isugu jiraa dad kala duwan xataa waayada dambe nimanka salaadiinta ay sameeyeen waxyaabaha la yidhaha aqoonsi soomaliyiin imaka magacaaga iyo sawirkeenu ugu yaalo iyaguna aqoonsi bay dadka u sameeyeen waagi dambe sawirka la bartayna sawirka waa lagu dhajiyo laakiin markii hore waxaa ku heli jiray magaca hebel iyo magaaladaad degan tahay iyo sanadkaad dhalatay baa ku yaala diinta qofka xataa kuma olay dadka meesha deganaa waa muslimiin waa kiristaan waa yuhuud kuwa bilaa diina inta weyley laguma qori jirin qolada uu qofkaas ka soo jeedo ama diinta uu haysto laguma qorin haddii magaciisa lagu garanayo waa macsaa waa iska tahay oda iyagu magacyadoodu turkigu magacyadoodu kolka magacyada dhaqanka loo noqdo kuwa badan oo wada rakaakoynaan akhriiba karin baa jira inagu amaaneen kuwa dhawaaqi karin ayaa jira marka muslim baa magaal waa ma kala garan karti marka waa un waxyaabaha been abuurka ah ee ay nimankani rabeen inay ilbaxnimada iyo horumarka iyo waxa ay samaysay ay kaga hortagaan qaybta labaad waxaan kusoo qaadan doonaa Orkhaan siyaasadiisii gudaha iyo tii dibadda marka taas waxaynu ka dhigan doonaa habeen dambe haddii la yidhaahdo intaasaynu caawa ku joojinayna wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.